waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb si weyn loogu soo dhaweeyay musharaxa urur siyaasadeedka GSB ee hogaamiyaha Galmudug Mudane Liibaan Axmed Xasan. wafdiga musharaxa waxaa qayb ka ah xogeyaha guud ee GSB Xuseen Sheekh Maxamuud, xildhibaano, wasiiro iyo madax kale. xogeyaha guud ee GSB Xuseen Sheekh Maxamuud oo madasha soo dhaweynta ka hadlay ayaa bogaadiyay sida shacabka Galmudug ugu diyaar garoobeen doorashada dadweynaha ee dhowaan dhici doonto, isagoo ka codsaday inay codkooda ku aaminaan musharaxa xisbiga GSB. musharaxa hogaamiyaha Galmudug ee urur siyaasadeedka GSB Liibaan Axmed Xasan oo soo dhaweynta kadib si toos ah ula hadlay dadweynihii iyo madaxdii soo dhaweysay ayaa uga mahadceliyay socdaalka dheer ee ay u soo galeen taageerada ururka. wuxuu sidoo kale goobta kaga dhawaaqay in uu yahay musharaxa hogaamiyaha Galmudug, isagoo xusay 3 qodob oo mudnaan siin doono haddii uu xilka ku guuleysto. qodobadaasi waxa ay ka mid yihiin adkeynta amniga, dib u heshiisiinta bulshada Galmudug, iyo in 6 bilood gudahood Galmudug kaga saari doono al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. shacab weynaha reer Galmudug ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug maanta dhoolatuska iyo weynaynta xisbiga GSB iyo hogaamiyihiisa musharaxa soo dhaweeyay. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waxaan salaamayaa haweenweynaha reer Galmudug, dhalinyarada, aqoon-yahanka, xildhibaanada, guddoomiyaasha degmooyinka, saraakiisha, saxaafadda, culummada, dhalinyarada ee khiyaarta halkaa iskugu timid, dhammaan bah kasta masab iyo magac ay ku joogto. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdii maanta waa maalin macno iyo miisaan reer Galmudug u leh, anigana gaar ahaan ii muujinayso in aan shaqada aan u soo diyaargarownay iyo hoggaanka dowlad goboleedka Galmudug dhiirigelin iyo shidaal ayay igu shubeen shacabka reer Galmudug. sidaa idii soo dhaweyseenna waa ku mahadsantihiin. salaan kadib iyo mahadcelin allah ayaa u mahadcelinaynaa. salaan kadib, hadafka Galmudug iyo daruufaha reer Galmudug ay ku nool yihiin iyo xaaladda Galmudug ay ku sugan tahay, qof xog ogaal u aan ahay oo Galmudug ka yimid, Galmudugna degan. waxaan rabaa daruufahaas Galmudug ay ku nool yihiin ayaan oga duwanahay xisbiyada kale iyo musharaxiin kale hadday jiraanba, inaan nahay xisbiga GSB xisbi ballaaran oo taageero weyn ka haysto shacabka reer Galmudug. soo diyaar uma ahayn inaan xisbiga taageerno. waxaan rabaa hadduu la yidhaahdo dowlad goboleedka Galmudug maanta halkan waxaan ugu dhawaaqayaa inaan hoggaanka dowlad goboleedka Galmudug aan musharax u ahay. dadka reer Galmudug meel ay joogaan inay igu taageeraan aan rabo. musharaxnimada maxay ku salaysan tahay? waxay ku salaysan tahay is-aaminaad, hufnaan, cadaalad iyo amni. Galmudug bulsho dib u heshiisiin, waad qiyaasi kartaan Galmudug duruufaha dib u heshiisiinta ay u baahan tahay, walaaleynta, midnimada deegaanka, marxaladaha duruufaha adagoo jira. ma suurtogalayso dadka reer Galmudug in qof reer Galmudug habeenkii gurigiisa uu uga dheelmado dooxato. waxaa ugu dambaysa maalinta hoggaanka Galmudug ay doorataan qof maalinta hoggaanka Galmudug ay doorataan hadduu la yiraahdo qof reer Galmudug oo habeenkii maanta baxayo, qof reer Galmudug oo dariiqa inuu maro ka baqayo ma jiri doonto hadduu la yiraahdo. waxaan rabaa shacabka reer Galmudug dal iyo dibad meel ay joogaan inay arrinta ay gala shaqeeyaan. ilaahayna u tala saaranaynaa insha Allah. waanu ku guuleysanaynaa dib u heshiisiin dhab ah oo walaaltinimo leh, oo isjecel leh, oo la wada dego magaalooyinka, oo Galmudug qof ka xiran aysan jirin hadduu la yiraahdo. xagga amniga Galmudug waad qiyaasi kartaan daruufaha kale oo ka jiro. dib u heshiisiinta markaan ka soo gudubno,
khawaarijta al-shabaab galmudug boos oogama bannaano galmudug boos oogama bannaana dowladda galmudug hadduu xisbiga GSB hoggaanka aniga alla yidhaahdo ku guulaysto waxaan idin ballan qaadayaa 6 bilood gudahooda in deegaanada aan ka saari doono khawaarijta al-shabaab arrintaasi waa arrin mabda ah waxaan la kaashan doonaa shacabweynaha reer galmudug dal iyo dibad waxaan la kaashan doonaa dowladda federaalka waxaan la kaashan doonaa dowlad goboleedka dariisyada waxaan la kaashan doonaa saaxiibada Soomaaliya dhammaan waxaan la kaashanaynaa sida deegaanka galmudug shabaab uga saari lahayn iyo sidii Soomaaliya oo dhan looga saari lahaa duwal yiraahdo arrintaas arrin oo waxay noqon doontaa insha Allah dadka aan ku hogaamino nololana xisaabtami doono dadka reer galmudug marka waxaan ka codsanaynaa maadaama ahdaafta amniga ee xisbiga GSB hoggaankiisa